السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن صاحبيال كسر دواد مقال عصب. مررك قار ما كشكسا إن صاحبك أو يهي صاحب رماد إن أو يهي صاحب بينه. صاحب بدا بينته بدنا وضدنا استياله وعند عدكو أهين. waxa ay saaxiib ku leeyihiin oo kaliya inta ay danahooda ka dhaxarkaan markay ogaadaan inaadan waxba u galina meel cidla ay kaaga tagaan muuqaalkanan maanta waxaan kugu wadaagi doonaa hadduu alle idmo calaamadaha aad ku garan karto saaxiibka beenta ah ku soo dhawaada mowduuceena maanta astaanta koowaad markaad u baahan tahay ma heshid saaxiibka wanaagsan waa kan ku garab taagan marka aad xaaladaha adag ku jirto haddii aad aragto saaxiibka oo mar walba aad wada joogtaan naftiisa iyo waxyaabaha isaga quseeya kaaga hadlaya marka aad adiga xaaladahaaga uga hadashana aan ku dhageysanayn ama isaga mashquuliya isla markaasna aan wax xiiso u haynin inuu dhageysto fikradahaaga waxay u badan tahay in saaxiibkaas uu yahay saaxiib been ah sababtoo ah saaxiibka beenta ah waa mid naftiisa oo kaliya daneeya si lamada xiriirada kale saaxiibtinimadu waxay u baahan tahay daacadnimo aaminaad danayn iyo xushmad si ay saaxiibtinimadiina u sii socoto balse saaxiibka beenta ah dhammaan sifooyinkaas way ka maqan yihiin astaanta labaad waxay ku soo xiriiriyaan oo kaliya marka ay wax kaaga baahdaan saaxiibka noocan ah waxaa laga yaabaa in mar hore isu keen dambeysay oo uusan muddo ku soo xiriirin isla markaana aad aragto isaga oo ku soo xiriirinaya marka uu wax kaaga baahan yahay markii uu ka helo wixii uu ka rabayna haddana aadan dib u arkin ilaa uu mar kale wax kaaga baahdo waxaad u tahay xalliye oo dhibaatooyinkooda ayaad u xallisaa oo kaliya halka aad adiga u haysato saaxiib haddii aad aragto saaxiibkii aad dhabta u haysatay oo ku soo xiriirinaya marka uu wax kaaga baahdo taasi waa calaamad muujinaysa in aanu saaxiibkaasi ahayn saaxiib dhab ah astaanta saddexaad kuma farxo guushaada saaxiibada dhabta ah midba midka kale ayuu taageeraa marka ay waqtiyada adag ku jiraan midba midka kalena guushiisa waa uu u dabaaldegaa saaxiibka dhabta ahi waa uu ku farxaa guulahaaga taa beddelkeeda saaxiibka beenta ahi waa uu ka xumaadaa marka aad guulaysato sidaa darteed ka taxadar kuwa aan kuu saxbin marka aad guul gaarto astaanta afraad been ayay kuu sheegaan sida aan horey u soo sheegnay saaxiibtinimadu waa sida xiriirada kale waxayna ku dhisan tahay aaminaad iyo kalsooni adag haddii uu saaxiibka ama saaxiibta been kuu sheego amaba uu been kaa faafiyo runtii kaasi ma ahan saaxiibka dhabta ah ee waa saaxiib been ah waxaana qasab ah inaad ka takhalusto oo aad xiriirka u jirto astaanta shanaad adiga ayaa inta badan xiriiriya marka ay saaxiibtinimadu tahay mid dhab ah labada qof waa in si isku mid ah u xiriiraan oo uusan xiriirka ka socon hal qof haddii aad aragto in qofka aad saaxiibka u haysato uusan ku soo xiriirinayn oo aad mar walba adiga tahay qofka bilaabaya xiriirka taasi waa calaamad kuu muujinaysa in qofkaasi uu yahay saaxiib been abuur ah arrintan aad ayay u dhacdaa waxaase nasiib darro ah in adiga oo daacad u ah qofkaas marmarsiyo lagaaga dhigo waan mashquulay sorry iyo ereyo kale laakiin walaal waxaad ogaataa in saaxiibka dhabta ah uusan waqti kuu waayin si kasta oo uu mashquul u yahay astaanta lixaad ee ugu dambaysa kuma difaacaan markaad hiil u baahan tahay waxaa jirta oraah uu yidhi Martin Luther King oo ahaa nin Amerikaan madow ah kaas oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oraahdu waxay ahayd ma xusuusan doona ereyada cadowgeena laakiin waxaa xusuusan doonaa aamusnaanta saaxiibadeen xiriirka saaxiibtinimada dhabta ah waa sida xiriirka qoyska oo kale midba midka kale ayuu u damqadaa haddii uu dhib ku jirana kuma fiirsado oo wixii awoodiisa ah ayuu ku kaalmeeyaa laakiin marka aad saaxiib la noqoto qof been abuur ah kuma caawiyo marka aad u baahan tahay taageeradiisa kaliya ayuuna kugu fiirsadaa inaad xalliso mushkilaadahaaga haddaba daawaday haddii aad dhamaysatay muuqaalka wax yar fikir ma jiraan qaar ka mid ah saaxiibada kuwaas oo leh dhammaan ama qayb ka mid ah sifooyinkan haddii ay jiraan waxaa khasab ah inaad xiriirka u jarto muuqaalkana maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa haddii aad ka heshay muuqaalka like saar siin share gareed intaan ku kulmayna muuqaalkiisa kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu